بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataa youtube channelkeena engineer ibro cusman. muuqaalkan kooban waxaan kaga hadli doonaa casharkii hore inoogu soo socday ee ICT-ga ee buugga ardayga ee secondary-ga dugsiga sare fasalka saddexaad ama form 3. lesson 2 waxaan ku arki doonaa casharadan soo socda. horey haddii aad usoo daawatay casharkii hore ee chapter 1ka introduction-kiisii waxaan kugula talin lahaa inaad ku noqoto muuqaalka aad muuqaalka iyo kan aad xidhiidhiso. waxaan idiin soo jeedin doonaa anoo ah Ibraahim Ismaan Cabdinuur. hore waxaan usoo aragnay in table-ka la sameeyo qaabab kala duwan loo sameeyo. haddaan casharkiini hore aan dib ugu noqdo 4 step ayaynu marinay inaynu insert-ga soo galno, kadib aynu soo dooranno table-ka inta uu dooran yahay. tusaale ahaan hadda sawirka halkan uga muuqda waxaa la doortay dan calaamad yar saaro ilaa 6 baa la doortay. sidaa aragtaan waa 6 column iyo 6 row baa la doortay, columnskii rowskii. sidaa darteed waxaan eegaynaa casharka labaad isna table-ka optionka labaad ee lagu samayn karo. isaga waxaa soo gelaynaa baa lagu yidhi step 1 click waxaa taabataa on insert tab. marka koowaad waxaa taabanaysaa insert tabka. on insert tabka haddii aynu eegno waa kan home-ka marka aad joogtid kuu soo gelaya. kadib insert tab markaa taabatid waxaa lagu yidhi stepka labaad under insert table click on table. marka adoo insertiga jooga waxaad doorataa table dooro, oo waa kan insertiga baa timi, table baa soo furtay. talaabada saddexaad haddaynu eegno wuxuu ku yidhi of the table template, nashqadda template-ka koo diyaarsan ee table-ka ayaad waxaa ka doorataa choose one of the following. kuwan soo socda midun dooro: A insert table, B draw table, convert text into a table, iyo D oo ah Excel spreadsheet iyo quick table. kuwan oo dhan halka waa kuwa ku jira. insert table waa kan, draw waa kan, Excel waa kan, quick table kuna waa kan. halka haddii aan qoraalkaan ila saxno waxaan ku daraynaa TA waan ku daraynaa. waayahay sidaa darteed haddaynu practically imika u eegno waxaan soo furanaynaa insert baan tegayaa. waxaan leeyahay tablekaas ayaan haddana waxaa kusoo dhufanaya insert table ayaan kusoo dhufanaya. marka intaas ayuu kani practical ahaan u sheegayaa. oo hadda numberka inta column ee la ii samaynayo waa 5, inta row ee la ii samaynayana waa 2. waayahay to create a table using insert table, adigoo u isticmaalaya insert table-ka si aad u samayso table intan ayaa samaynaysaa. stepka koowaad wuxuu ku yidhi click one insert tab. insert tabkaad soo gelaysaa. haye stepka labaad under insert tab click on table kugu soo dhufo. marka tablekii ma hadda joognaa, insert table baad kasii gelaysaa. stepka afraad wuxuu ku yidhi insert waxaad gelisaa the number of rows, tirada inta row and column ee column you want in the specified text box ku yidhi ama text boxes. halkan waxaad gelinaysaa inta column aad rabtid inuu saa u taxamo ayaad gelinaysaa. tusaale ahaan haddaad doonaysid 5 maalmood inaad qorto sabti, axad, isniin, talaada, arbaca, sidaa u taxamo 5 baad halkaa gelinaysaa. haddii aad rabtid inaad 2 aad gelisid maado oo 5 isla dhigan iyo kale aad hoos u taxamana 2 ayaad ka dhigaysaa rowga. waay intaa waa isla garanay. stepka shanaad wuxuu ku yidhi step 5 click OK. marka ayada waxaad taaban doontaa OK. kadib markaad OK dhahdo qaabkan ayuu kugu soo gelaya. wuxuu ku yidhi other options like optionada kale ama doorashooyinka kale ee ah aad ka midka yihiin draw table, convert text into a table, Excel spreadsheet and quick table. iyaga intaas oo dhanna can be used based on user requirements. iyagana userku isagu inta uu ku baahan yahay ay ku xidhan tahay ayaa la isticmaali karaa. waaya table design-ka intaanan gelin waxaanu si degdega kusoo samayn doonaa table caadi ayaynu practically aynu soo gelin doonaa si aynu u fahanno tableka. maadaama casharka horena aynu hore usoo samaynay, kana waxaanu ku tijaabinaynaa wordki ayaan soo galay. waxaan furanayaa blank document ama warqad maran oo cad ayaan furan doonaa. waxaan si toosa u imanayaa markan daaqadda ay ku qoran tahay insert ayaan imanayaa siday nagu qoran. kadib table ayaan dhulinayaa, waan soo furayaa. hadda casharkii hore waxaan ku dhiganay in sidan haddaan arrowga aan falaadha la raaco marba midba is samaynaya. hadda waa hal row baan haystaa smartan dhag u bat waa sii bat. haddaan rabaa inaan samaysto 3 column iyo 3 rowna sidaas aan usoo raacanaya. laakiin markan waxaan leeyahay weli waxaad timaadaa insert table tag. inta row column aa u baahan tahay halkan numberkan geli. tusaale ahaan 7 maalmood baan qoran. halkan rowskana waxaan gelinayaa 7 maalmood maalintiiba 5 maada la dhigta oo kala leedahay. okay dheh waad aragtaan halka haddaan qoran iminka
sabti aan idhaahdo axad aan haddana idhaahdo isniin haddana aan idhaahdo talaada haddana aan idhaahdo arbaca oo kale haddana aan idhaahdo khamiis iminkana waxaan leeyahay jimce kole jimcaha waxbarasho lama dhigto inta badan halkan marka waxaan leeyahay 1 2 3 4 maadooyinka halkan aad gashan kartaa halkanna maalmihii baa ka dhiganaysa marka columniska haddaan markale aan ku noqdo qaabka u shaqeeyaan wax kale maaha columnka ku yahay iyo row ku yahay inaa fahantaan baan rabaa shantan hadda aanu eegno ka keliya aynu bal hadda rowga aynu ka dhigno mid keliya kaana aynu adaan doonno 8 ba ka dhigno okay andho ka bata eega somaalitaan kan ayaa batay sidaa darteed kan sidan u jiifo waxaa la yidhahdaa column ka kalena waxaa la yidhahdaa sidan u taagmi doona ayaa waxaa la yidhahdaa isna show markana bal aan 8 iyo 8 sameeyo halkan insert table ayaan leeyahay kaa ayaa waxaan ka dhigayaa 8 cruise-ka hoosena waxaan ka dhigayaa 8 waxa marka column-ku waa kan oo isagu noqonaya 8 ayuu noqonayaa sidanna wuxuu u noqonayaa row oo waa 8 marka sidaa ayaa loo sameeyaa isaga columniska ama table-ka oo dhan qaybtan iyaduna waxay ka hadlaysaa table-kii markaas oo samaysato waxaa lagugu sameeyey marka hore nashqad cadaan oo originally markaad ku dhufatida laakiin design baa u samaysan kartaa wuxuu ku yidhi a table in word documents table-ka ku jira word documentska ama warqadaha wordka can be customized oo la nidaamin karaa maxaa loo nidaaminaya to appear si warqadaasi ay usoo muuqato attractive and look good si warqadaasi u noqoto warqad soo jiidasho leh si fiicanna ay usoo baxdo we can apply different template designs and styles nashqado iyo dhisayno kala duwan ayaan warqada u yeeli karnaa nashqadahaasoo built in on Microsoft Office Word kuwaasoo nashqadahaasoo ku yimi oo ku dhisan barnaamijka Word waayahay si aad u samaysay buu ku yidhi to apply a design to your table tablekaaga si aad design ugu yeesho flow steps below waxaad raacdaa tallaabooyinkan hoose step 1 tallaabada koowaad select waxaad doorataa the table you want to apply a design tableka doonaysa inaad design u samayso step 2 tallaabada labaad go to table design tab taabka waxaad tegaysaa tableka ee designka tegaysaa waayahay stepka saddexaad waxaad doorataa design ama style you want and click on it designka u baahan tahay baad dooranaysaa waa ku dhufanaysaa sida sawirka halkan ka muuqda tableka baa soo gashay qaybta designka kadib waxaad tiri hoos ba usoo degtay hadda kaa buluga baan doorsay sidaa ayuu noqon doonaa marka kanna waxaan u eegaynaa practical baan u sameynaynaa waxaan soo gelayaa wordkii tablekii imika waan haystaa sidaa darteed qaybta designka joogaa waan soo falaadha ayaan kusoo dhuftay kuwa huruudda casaanka marba kaan doorto waa aragtaa isla bedelayaa kaa oranjiga oo kale haddaan ku dhufto tablekaygii saasu noqdo dana tableka ayaan dooranayaa dhisaynadan kala duwan ayaa marba mid ka dhufanaya sidaa darteed dhisaynadan ayuu kuleeyahay waa kuwa built in on Microsoft Office Word oo kuwa ku yimi uu kuleeyahay barnaamijka Word weeyaano marba kaad u baahan tahay ayaad ku dhufanaysaa waayahay waan aragnay iyaga in kalarku isbedelo oo qaabka noqdo laakiin casharka wuxuu kuleeyahay to see more different galleries of table styles si aad u aragto dhisayno ama style kala duwan oo table kuleeyahay click the table styles iconka tableka ama kaashada oo tan ah ayaad ku dhufan doontaa when you move your mouse over one of the styles adoo mouse-kaaga falaadha u dhaqaajinaya marba kaa doonaysin a live preview of your actual table appears preview ama muuqaal sida uu noqon doono ah oo live ah oo si toos lagu tusay ay iman doono tusaale ahaan waa marka aan mouse-ka dul keeno imika halkan aan kusoo dhufto mouse-ka la dul keenaya waa kan falaadheedii waan wataa kaarta hadda markan kaa dul imaado waa aragtaan halkan isbedel ka dhacaya dana hoos mar walba aan imaado waxaad aragtaan in isbedelku imanayo sidaa darteed buu kuleeyahay mouse-ka mar akaad keento falaadha dul keento wuxuu yeelan doonaa live appearance baa arkaysaa waayahay intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa casharkan marwaba inuuna muuqaalku dheeraado waxaan kaga hadlaynay tableka waa lesson 2 si gaarsiiya muuqaalkan sheer garaya ardayda la wadaag muuqaalka xiga intaan idinka gudbi doono waano Ibraahim Ismaan Cabdinuur oo idinkaga tegaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu